السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي على سلامتين ملك استوديو دافع كجوكتان كسو داود برنامج كين عيارها أنا كسو قادم دنا قدمادي حالي تشامبيون ليج لقى عيار نتيجوين كي وحيابيه لقى قري فضلا هديت ملك كوجو هوريسات صوب بقطة جنال كين فضلا سبسكرايب نوصار لايك صار مقال كان وايد بدن وجاريان أركتدا نقوم تير نقرب wargeysyada Isbeen oo hal xiddig ku eeday ceebtii Real Madrid ka soo gaartay Champions League ee xalay Real Madrid ayaa guuldaro lama filaan ah kala kulantay kooxda Shakhtar Donetsk kulankoodii furitaanka xil ciyaareedkan Champions League iyadoo wargeysyada Isbeen ay mas'uuliyadda guuldarada dusha u saareen kaliya hal ciyaaryahan wargeyska Marca oo ka soo baxa caasimadda Isbeen ayaa tilmaamay Marcelo uu sabab u ahaa guuldaradii iyadoo xitaa ka hoos mariyeen tababar Zinedine Zidane oo wax badan qalday xilli ciyaarta waxay xiddiga reer Brazil ku qiimeeyeen kaalinta 15 qof Real Madrid ka qayb qaadatay guuldaradii ka soo gaartay kooxda reer Ukraine isagoo hal boos ka hoosiyay tababar Zinedine Zidane Los Blancos ayaa guuldaro lama filaan ah ku soo gaartay gurigooda xilli maalmo ka hor sidoo kalena ay guuldaro ka soo gaartay kooxda ku cusub La Liga waliba iyadoo la jooga garoonkeeda ku meel gaarka ah Madrid oo ugu cadcadeed kulankan maadaama Shakhtar 13 ciyaaryahan ugu maqnaayeen coronavirus dartiis ayaa 3 laga hogaaminaya qaybta koowaad ee ciyaarta wargeyska Marca ayaa weerar qaban ku qaaday Marcelo iyagoo sheegay inaan looga fadhinin xiddiga reer Brazil inuu kubad difaaco waxayna ku taliyeen in kaliya la ciyaarsiyo kulamada kubad daree waxayna sheegeen inay tahay wax laga marugood in xiddiga reer Brazil uu si weyn hoos u dhac ugu imid heerkiisa ciyaareed Marcelo ayaa booska daafac bidix wuxuu kula tartamay Fernand Mendy kadib markii Sergio Reguilon laga iibiyay kooxda Tottenham dhinaca kale Manchester City ayaa ku tumatay kooxda reer Portugal ee FC Porto taas oo gool kaga naxsatay bilowga ciyaarta daqiiqadii 40 ay Porto hogaanka ciyaarta qabatay waxaan u dhalay Luis Diaz yeeshee Sergio Aguero oo rigooro ugu barbariyay Man City iyadoo qaybtii horena ku dhamaatay 1-1 qaybtii labaad ayay Manchester xaqiijisay guusheeda ciyaarta waxaana laba gool oo Darandoori u kala dhalayeen Ilkay Gundogan iyo Ferran Torres oo badal ku soo galay Bayern Munich oo xasuuqday Atletico Madrid Inter Milan oo barbar gashay oo garoonkeeda barbar ku gashay Bayern Munich ayaa guul ku bilaabatay xilli ciyaareedkan cusub ee tartanka Champions League ay koobkiisa difaacanayso waxa ayna meel iska saartay Atletico Madrid oo ugu timid garoonkeeda Allianz Arena oo ay ku xasuuqday 4-0 Bayern Munich ayaa ciyaarta oo saadaalin kala duwan laga sii bixiyay waxay hogaanka qabatay daqiiqadii 28 oo kubad uu meel fog ka soo Torre Kimmich oo shabaqa ku Atletico Madrid dhigay Coman waxaana uu ku xigsaday oo mid kale ku daray Leo Garza dhamaadkii qaybtii hore ciyaarta qaybtii labaad ay Bayern Munich wacdareeda sii wadatay waxaana laba gool oo kale u kala dhaliyeen Tolizo iyo Coman oo goolkiisa labaad xaqiijiyay inuu dhashay macallimiinta Felix iyo Simeone ayaa isbedelo ku sameeyay sababkii ay ku ciyaarayeen kulamadii horyaalada dalalkooda ee toddobaadkan si ay kooxdooda u firfircoonaysiiyaan Bayern Munich oo garoonkeeda la jooga ayaa si xoogan ku bilaabatay ciyaarta waxayna gacanta ku dhigtay qadka dhexe oo Kimmich kaashanaya Muller iyo Kurzawa ayaa shaqo cajiib ah ka qabteen sidaasna 4-0 ay Atletico lagu xasuuqay Bayern ayaa 10 cajiib ah u dhigtay dhinaca kale Inter Milan iyo Borussia ayaa barbaro 2-2 kula baxay kulan ka dhacay San Siro Stadium taas oo ay labada kooxood dagaal adag ku galeen sidaas ayuu kulankaas ku dhamaaday barbaro